maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2019 shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada Jubbaland go'aamadii ka soo baxay ayaan halkan idinku soo gudbinayaa insha Allah. golaha wasiirada Jubbaland waxay si kulul u cambaaraynayaan qaraxii ka dhacay shalay xamar 24 bishii 7 2019 xarunta gobolka Banaadir waxay isla markaana tacsi u dirayaan ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxaasi foosho xun. ilaahay ha u naxariisto intii ku geeriyootay intii ku dhaawacantayna Allah ha caafiyo. markaan inta tacsida ka gudbo waxaa golaha loo soo jeediyay la soo bandhigay go'aamadii shirkii golaha amniga ee 24 bishii 7 2019 ka dhacay halkan waxaana la soo jeediyay qodobadii iyo go'aamadii ka soo baxday. golahuna si buuxda ayuu taageeray waa golaha wasiirada ee Jubbaland. qodobka saddexaad markay golahu si buuxda u falanqeeyeen una qiimeeyeen xaaladda siyaasadeed amni iyo tan bulsho ee xilliga doorashooyinka ayagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga waxay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan. qodobka koowaad laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2019 waxaa la farayaa inay heegan buuxa galaan hay-adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoollada cadowga iyo khatarta amniga. qodobka labaad golahu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dowladda federaalka Soomaaliyeed waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas'uuliyiinta xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo 26 bisha 7 2019 ilaa doorashooyinku ka dhamaadaan way soconaysaa hakintaasi. go'aankan oo loo sababeeyay faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga iyadoo dowladda federaalku ay caadaysatay ku tumashada xeerarka dalka u degsan iyo burburinta maamulada sharciga ku dhisan. qodobka saddexaad ugu dambeyntii golahu wuxuu ka codsanayaa shacabka Jubbaland ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka inay ku garab istaagaan doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacda si nabad ah.